وحبريها صوب حضي أنا قلت إنه بدي الدفاع وكم قرن هود هذه وعي هاي تاكتيكية هاي إنه كم قرن هود مرة بقى أنا سوي تاجنان لكن واحد مدة إلا كفايدستي أو أي كفايدستين قليل عن كسر تشدي وتشددنا وحوي إن العدايو بوتلان صدق شير أما لو شير منفلة وحيمي UN iyo IGAD oo Soomaaliya ay xubin ka tahay labadaba gaar ahaan Puntland ay ka mid tahay waxay ka hadlayeen dawaa mandate-ka ay lahaayeen oo ah nabad in arrimaha ka taagan sool lagu dhameeyo nabad bay ka hadlayeen Puntland nabad bay ku calaamaasay nabad bay halka ku soo gaadhay Puntland waxay rabtaa nabad bay rabtaa laakiin nabad ay rabtaa ma aha gurigaaga intaan soo gala nabad qaadanaya waxay la kulmayeen xukuumadda oo madaxweynuhu ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiro waxay la kulmayeen baysimada reer sool ama sool iyo sanaag iyo cayn oo u badan oo halka jooga iyo isimo kale oo reer Puntland ah waxa laga wada hadlayo waxa weeye nabad baan rabnaa laakiin nimanka ku noqdeen dhulkoodii nabad weyn rabnaa waa run waa inay ku noqdaan dhulkoodii deegaankaada ku noqdaan laakiin iyagoo halka jooga oo 100 iyo 200 kilomitir oo dhow gudaha ku jira Puntland nabad baan rabnaa ama gabadhan ku noqonay idiguna tukuraq taga hada in laga yeelmay way ku mahadsan yihiin IGAD iyo UN arrimaha fikirka ay la yimaadeen laakiin Puntland ma qaadanayso mana qaadan doonto Puntland waxaan u sheegnaa dadka shacabkeeda reer Puntland nimankaas way hadlaan afkay ka hadlaan xaggana waxa jooga ka hadlaan waa niman siyaasiyiin oo u dhashay deegaanadan magac ahaan dadkan ka soo jeeda waxa ay sheegaan ay ku hadlaan oo waxay rabaan been ay ogyihiin oo niyadooda ku qancinayaan waxay dhahaan anaga khatarna meereblay anaga shacabkuna raacay ismadii u badnaa ee goboladaasi ee Puntland halkani jooga waa ogla boqofkooda waa cadiya UN uu ogyahay IGADna way ogyihiin waxaana la isla qaat hal mowqif ay isla qaateen dawladda iyo ismada reer Puntland ha ku noqdeen deegaankii ay lahaayeen ay ugu sokayso og markaas baa nabad laga wada hadli karaa inta ay ku jiraan adeer waa la dagaalamaya dagaalagu dhacaya dalkana xoog baa laga saaray dadka bixi waay ma jirto wax la yiraahdo nabad baa la qaatay waxaasay shuwaaro u sheegay dadkooda beenta ah waa la ictiraaf raadina iyo dawlad gaarayna waa gobol ka mid ah Soomaaliya waa gobol midnimadiida waa gobol Soomaalidiida labada gobol ee waqooyi galbeed waxaan leenahay la baxa ciidamada haddii la bixi waayeen dagaal ugu dhacaya waxaan u sheegayaa shacabka reer Puntland war wallahi billahi tallahi dagaal waa dhacay ana idin dhaartay wallahi wuu dhacaya haddii aan ka bixino soo dhaqsaha badan ka bixin oo ku noqon dhulkoodii wixii ka yimaadana iyaga ka mas'uula ujeedada aan shirka u qabanay intaas ahayd waana mahadsantiin